sida ilmo saddex jir ah ayaa wasiir maareeye agaasime maanta loo canaantay kadib markii shaqadooda ay qabsan waayeen oo ay noqdeen kuwo lacagta laqlaqa oo aan wax shaqaha qabanin macaa shirkada ka shaqeysa aeroboortka Xamse Cabdi Barre maanta waa uu ku cibaadaystay dadkuna waa ay u sacbiyeen shaqo la yaqaan ayuu qabtay oo ummadu in badan ay u baahan kulan wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qubanaha qoran oo aanu maanta ku dul istaagi doono aeroboortka magaalada Muqdisho indhaha Soomaaliya halka laga soo galo oo ceeb weyn ka taagneed Xamse Cabdi Barre maanta waa uu cibaadaystay shaqo shacabka ay u baahnayeen in badan ay ka cabanayeen ayuu wax ka qabtay muuqaalka sheekadaasi ayaan ku falanqeyn doonaa waxa ka dhacay maanta aeroboortka magaalada Muqdisho ee aadan adigu ogeyn ee fadlan muuqaalkan shargare saaxiibadada u gudbi qabo qof kasta oo aad isleedahay waa u muhiimna gaarsi aynu ku bilaabano aeroboortka magaalada Muqdisho halka laga soo galo Soomaaliya indhaha oo ah fadeexad ayaa ka taagneed ilaa iyo in muddo ah halkan shirkado shisheeye ayaa ka shaqeeya oo lacag ku qaata shirkadahaasna shaqada wax kula xisaabtami jira ma jirin si aan xishood lahayn ay aeroboortka u dayaceen oo ay ugu horeyso aeroboortka musqulihiisa meelaha la dhiganayo boorsooyinka wax kasta oo isha dadku ay qabanayaan marka aeroboortka la soo galo waxay ahaayeen kuwa dayacan waxaad ogaanaysaa shirkadahan dawladda Soomaaliya ayaa heshiis la gashay waxaana la rabay in shaqadaasi ay u qabtaan aeroboortka magaalada Muqdisho lacagana ayagu si caqli ka fawqa ay ugu sameeyaan faa'iido laakiin waxa la rabay in wasaaradda dawladda federaalka ee Soomaaliya u qaabilsan halkaas la xisaabtanto laakiin lama xisaabtami jiray gabi ahaanba sababtu maxay tahay shirkadahaasi madaxda waxay sii jireen lacago sidaas daraadeed afka ayaa wax loo gali jiray waana ay ka aamusi jireen in badan shacab Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa ka cabanaya aeroboortka sida loo dhaqmayo musqul la'aan halkaas inay ka jirto musquluhu aysan biyo lahayn qofka wax nadaafada uusan helaynin xitaa wax gacmaha lagu dhaqdo sidoo kale aeroboortka qofku markuu soo dago aeroboortka waxa jira meel la dhigto boorsooyinka ama boorsada la keeno ee wareegto qof kasta boorsiisa qaato gabi ahaan halkaas ma shaqeynayeen waxa yaalay mashino jacburisa been abuur ah waxba aan ka jirin oo aan shaqeynaynin oo magac u yaal aha Xamse maanta waa uu qabtay halkaasna waa uu tagay sida ilmo oo kale ay u canaantay nimankii madaxda ka ahay aeroboortka oo ay ugu horeeyaan wasiirkii maareeyihii agaasimihii guud xitaa shirkadii Faafuur oo wada jooga dhagaha ay uga dhacay waxa uu sheegay in 2 asbuuc gudahood u baahan yahay halkan shaqada ka jirta in isbedel lagu sameeyo oo hadii ay dhici weyso talaabo laga qaaday mas'uuliyiinta shacabku way u riyaaqeen waa ay u sacabtumayaan Xamse Cabdi Barre shaqada uu maanta qabtay ee loo baahna tani waxa ahayd wax in badan la sugayay Xamse Cabdi Barrena waxa ka dhab ah ama ka muuqata sheegashadii hore uu sheegay ee ahayd inuu janno ku raasanayo siyaasadda uu ku jiro talaabadii koobaad ee maanta u muuqata in janno lagu dhawaanayo ayuu qaaday in badan oo xukuumaddiisa iyo ciidanka uu amray wax kasta ay dadka barakicinayeen saaka talaabo ka farxisa ayuu qaaday bal muuqaalkan Xamse si fiican ila daawo iyo sida loogu canaantay madaxda oo wasiirku u horeeyo oo ay hundursadeen gabigood hoos dayayaan canaanta Xamse Cabdi Barrena ma aysan kala hakan waxaan kor taaganahay beltigii qaybta localka airportka sida ii muuqata ma shaqeynayo mashiinka waana mashiin waqti hore la keenay waana fadhiyaa kaas kalena waa sidoo kale waa shaqeynayaa laakiin waa old asna kuwa internationalka aan soo marnay qaybta internationalkana waa sidan oo kale marka wasiir waxaan faraynaa mashiinadan in la bedelo oo shaqeeyaan cidii ku shaqale waa in amar la siiya waa in mashiinadan airportka ay sida si sax ah u shaqeeyaan oo joogsi lahayn within 2 weeks waan ku soo noqon doonaa meeshan waxaan rabaa kuwan bishiiradan oo cusub oo shaqeynaya inay meeshan imaadaan waa qodobka labaad xamaamyada waan soo maray iyo nadaafadda ayaguna kuma naan farxin waa la bedelayaa dhammaantood musqulaha waa in la bedelaa tuubooyinka biyaha
dhaqanka Soomaaliga mid kale tuubooyinka Soomaalidu taqaan in loogu xidhaan rabnaa walaalahan way mahadsan yihiin Istanbul sida loogu xidho halkan loogu xidhi maayo halkan Soomaaliya la yiraahdo dadka Soomaaliyeed waxay yaqaanaan ayaa la rabaa in loogu xidho biyaha ay isticmaalayaan xamaamaadka iyo xamaamyada tuubooyinka weji dhaqa dhammaantood waxa waaye waxaa galay maxaan ku dhahaa daxal baa galay way daxalaysteen mid shaban iyo mid midabkii ka bedelmay oo ebra waayo waxaan rabnaa in la bedelo kulligood dhammaantood nadaafadda dhulka iyo derbiyada iyo meesha wax yaalay kulligood in wax laga bedelo dhammaantood la bedelay u baahan yihiin waxaan rabnaa shaqaalaha airportka ka shaqaynaya nadaafadda in la tababaro hadday jirto company hawshaas u xilsaaran waa inay shaqaalaha tababartaan waa inay qalabkii loogu talagalay siisaa suurtagal maaha laba qol oo guriga gabadhii ama wiilkii gurigiisa nadiifsan jiray qalabku ku nadiifsan jiray airport laguma nadiifin karo mishiinaa loo baahan yahay waxaan rabnaa in alaabtaas la dhammaystiraan rabnaa marka arrimaha nadaafadda iyo maxaan ku dhahaa iyo xamaamyada iyo mishiinadan beltska ay ku wareegayaan maxaan ku dhahaa boorsooyinku labaduba airportka waxaad moodaa inaysan intaas ka badan lama sii dulqaadan karo waxaan ku yimid anigu dareen shacab oo ay ka soo calaacaleen meeshaas ayaan saaka u imid inaan soo fiiriyo waxay shacabku sheegayeenaa meesha ka muuqda iyo wax ka sii liita weliba maareeyaha iyo wasiirka iyo dadka u xil saaran meeshaan sababay u joogaan ma garanaya haddaan intaan la saxayn ma garan karnaba sababaad u joogtiin ma garanaya hadday sidan ku shaqaynayaan dadku marka wejiga ummadda Soomaaliyeed yaan la fool xumayna sidan maaha wejigeennu saan uu ka qurux badan yahay wejigeennu xamaamyada aan arkay maaha uu ka qurux badan yahay marka nooma qalanto waxaas dadkeen nooma qalanto inaan caalamka tusno oo inoogu soo galaan inoogu yimaadaan oo markay xamaamkeen galaan ay waxaas arkaan ma doonayn airportadaan tagno inagu ka degno siday u egyihiin inay kooban u ekaadaan waay inay keenu ekaado waay marka arrintaas waa waajib mishiinada iyo iskaanada aan soo marnay oo dhan waxa waaye waa kulligood waa one single view adduunku hadda uu ka gudbay taas marka waxaan u baahannahay kuwaasna inay isbedelaan aan u baahannahay si amniga iyo habsami socodka muwaadiniinta safarkoodu si uu sax u noqdo amnigana loo sugo marka waa in mid oo multiple views la sameeyo oo la keenaa marka cidda aan kula heshiinay airportka inay running garayso waa inay si kalsooni leh oo aan ku kalsoonahay annagu oo aan ku qanacsannahay inay u shaqaysaan rabno marka intaas waxaa u xilsaaran wasiirka iyo tiimkiisa 2 weeks kadib insha Allah waan soo noqon doonaa waxaan rabaa arrintaas nadaafadda iyo beltskaana horta isbedelay in loo imaado arrinta mishiinadana sidoo kale waxaan rabnaa in ayadoo shaqo ka socoto inaan